dhammaan inta ay khusayso dhismaha galmudug odayaasha siyaasiyiinta iyo inta daneysaba waxaan u sheegaynaa ogeysiis muhiim ah ogeysiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay maanta waxaa fariistay maanta bisha 15 December ay tahay waxaa fariistay guddiga xalinta khilaafaadka ee maamul dhisida galmudug guddigaas wuxuu go'aanshay in ogeysiis la sii daayo oo ku saabsan soo gudbinta cabashooyinka la xiriira odayaasha dhaqanka ee ku soo baxay liiska wasaaradda arrimaha gudaha cidda cabasho ka qabto in ay soo gudbiso laga bilaabo maanta ilaa bisha 18keeda waxaa la soo gudbi karaa wax alla wixii cabasho ah cabashadaasi 18 kadib lama qabanayo waxa cabasho ah marka inta ka horeysa 18ka fadlan soo gudbiyo waxa cabasho aad qabtaan waxa ku soo hagaajinaysaan xogeynta guddiga xalinta khilaafaadka dhuusamareeb yahay xafiiskeeda teeda kaleeto odayaasha maqan waxaan ka codsanaynaa inay soo xiroodaan oo ay maaragtay deegaamin ayaa socoto oo ay yimaadeen si dhaqso leh waayo waxaa bilaabmayo si degdeg maaragtay u dhaqaaqi doono maamul dhisida galmudug haddaba arrintaas xalinta khilaafaadka aad bay muhiim u tahay waxaan doonaynaa si loo helo galmudug tayo leh galmudug loo dhan yahay galmudug ay shacabka iyo deegaanada galmudug ay wada dhisteen si loo helo in maaragtay wax alla wixii khilaafaad ah si cadaalad ah lagu xalliyo sida daradeed waxaan ka codsanaynaa cid alla cid cabasho qabto mar labaad aan ku celinayaa ilaa maanta laga bilaabo oo 15 December ah ilaa 18 inay ku soo gudbiyaan cabashadooda ay u soo gudbiyaan guddiga xalinta khilaafaadka kuna soo hagaajiyaan xogeynta guddiga